shalay habeen hore abaaro shanta oo habeenimo waxaa qarqar jibiyey webigii oo nagu soo fatahay deegaanka oo maartay camamay khaasatan laba xaafadood oo deegaanka ka mid ah xaafadda oo la kala yiraahdo Tawfiiq iyo Waaberi biyahaasi runtii waxa weeye muxuu ahaa deegaanka si maartay wax si xun bay u waxyeeleeyeen insha Allah markaan aan maqalnay baan gurmad sameynay dhamaan goobweyn baan gurmadkeeda sameynay waan ku soo baxnay sidaan wax uga qaban lahayn aan maartay muxuu daraasaad ku sameynay wixii markaan ogaanay in ay awoodda deegaanka ama awoodda maamulka wax ka tan badan inay yihiin wabigana uu karkaar jibiyey biyo badanna uu waday badina ay nagu soo celisay waxaan baaq u dirnay dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo madaxweynaheena aan jecelnahay mudane Sayid Axmed Maxamed Islaam xaqiiqiyan shalay abaaro 2 saac markay ahayd dowladii ayaa noo soo gurmatay uu madaxweynuhu horkacayo wufuud kala gedisan ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradihii ka howlgalayay Jubbaland dhamaan goobweyn deegaanka goobweyn bay noogu yimaadeen muxuu ahaa saacadaas oo shalay ah gurmadkii bilowday iyo howlgalkii bilowday ilaa ay xalay waagi baan ugu bariyay ilaa saacadaas hadda aan hadlayno wuu socdaa gurmadkaasi iyo celinta fatahaadaasi xaqiiqiyan waa lagu guuleystay 80% 90% aan yiraahdo waxaan 10 dhameen ayaa noo dhiman ilaa iyo caawa inuu gurmadkaas soconayana waan qiyaasaynaa insha Allah waxa khasaara meesha ka dhacay 8 beerood ayaa ma aragtay dalagii ku yaalay macamatoradeedii maca qalabkii lagu daabin lahaa ayaa mayaambooyinkoodii ayaa la tagay wabigii fatahaadii la tagtay waxaan hadda aan ma aragtay aan joognaa 7 saac maalin 8 saac maalin farqaheeni ay noogu soo gashaa kaneecada bahal la yiraahdo oo ma aragtay suul gooyso oo badda iyo meeshka imaatay mooy ilmaha ay ku xarootaa waxaway dharkay cuni haysa kaneecdii anaga ay cuni haysa waxaway intaasina hay'adana waa u sheegaynaa dawladana waa u sheegnay madaxweynaheena ma aragtay waan u sheegnay haddana waan ugu celinaynaa in naloo soo gurmada ayaan rabnaa waan naloo soo gurmaday in naloo adkeeyo ayaan u baahanahay halay min uhurat biyo barqa biyo butaawana soo galay biyahaas aad iyo aadan in rafaaday matoorihii ana oo haabi ka gadadi qorni aan guro qorni dhahan ona afka Soomaalida markii la galo haabi la dhahe iyo ku gurni yaambihi seefihi wixii yaamba una beeraha ka faladayni kulli biyaha qaadi doonti una ata ku gudubayni kulli biyaha qaadi waxaan ka rabaa Ahmed Madow madaxweynaha Ahmed Madow Ahmed Islaam waa ku salaamay waxaan kaaga salaamay deegaanka Goobeen anagoo aamana siido beerti aan ku noolay lama darab oo basal biyaha oo qaadi 10 darab nyaanya biyaha oo qaadi biyihii sunta wixii alaab qalab oo beerta aan isticmaalay kulli biyaha oo qaadi wax ana haysada farax inka jir maalintan ilaahay abuudi ma jiro hatta ma ashayna halay hungur ma aan waaba wareersanyaba dawladda Jubbaland inay oo gurmad insa suubado oo ma ala shacabka inay oo gurmad insa suubiyan iyo aan ka baahanya halkaas ayaa anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Goobweyn Axmed Yacquub Guyow madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa wuxuu soo booqday tuulada Goobweyn isagoo u kuurgalaya dhibaatooyinkii ay geysteen fatahaadii biyaha oo si uu ugu kuurgalo waa uu tagay goobtii wax laga xiraayay ee gawaarida ay ku gadinaysay iyo gaarigii baalaha ahaa ee shaqeynayay indhiis ayuu ku soo arkay kadib
waxa uu soo boqday dugsiga hoose dhexe Goobeyn ee isaguna ay saameyn ku yeelatay yani fatahaadii biyaha ee habeenka 29 ka soo galay xalana ay biyihii aad u sii kaceen 30 bisha ay aheedo ay yani sameeyeen kor u kac kadib wuxuu soo galay dugsiga hoose dhexe ee Goobeyn isagoo kalaas u galay dugsiga oo qiimeeyay yani heerka waxbarashada iyo baahida dugsiga ee uu qabo yani wuxuu dhex istaagay kalaas aysan lahayn hal kursi aysan ku jirin oo arday Soomaaliyeed oo da'yar ah ay fadhido يعني أرنكاسنا عاد أيوه أوجي يعني قل شيء وحنا قبل قاضي يعني إنه كراس أوكي دهنا مدعوينها أو أرض داسي قاركونا بنانك أي فديان قارنا الله اللي جاي كلاس كوجرة عندي سو قارك كلاس كواد أو قبل قاضي إنه أوكي دهنا كراس أو أرنكاسنا عاد مهم وقتها يعني حاجة وحبرشة كده إنه هو بقضي كلاس سيدا فصل كلابات صدحات أفراد شناد لحات تضبط أو لما عندي سو قارك بوك تودنا وده في ذي وأتكارك كرتان معناها صور كسوا موجناها إنه أرضي ولا بدل استعجي يعني سي براتك الله وفولي أرنكا يدعى أرنكاسنا آدي أنا قوم علينا يعني مدعوينها دولة قبلات كجبلان أحمد محمد إسلام بوقشة وصاب بقضي دوكسيا هي أرضها ويعني مد سد الاستعجي السقو قيمين يعني هيرك وحبرشة دوكسيا هو سد جوبين كجرته baahiyada madaxweynaha aan u gudbinay ee indhiisa uu ku arkay waxa kamid ahaa sida ardada dhulka fadhida in kuraas uu loo keeno isagana markiiba amar bixiyay oo kuraas in loo keeno ardadaasi yani meesha amar ka bixiyay waxa kale oo baahiyadeena ayaan u sheegnay madaxweynaha isagana uu indhiisa ku arkay yani dhismo inaan u baahannahay qolal ardadaas dhulka fadhida in loo helo qolal oo amar ku bixiyay in la helo yani ama degdeg loo dhiso laba qol oo ardadaasi ay fariistaan waxa kale oo madaxweynuhu yani uu bogaadiyay yani oo shir gaar ah la yeeshay macallimiinta dugsiga wax ka dhiga isagoo macallimiintaasi yani abaalmarin yani motivation asiyay ama dhiirigelin asiyay yani waxbarashada ugu dhiirigeliyo arrinkaas isagana aad ayaan u soo dhaweynayna madaxweynaha waxaan leenahay yani qaraarkaaga meeshaada ka sii wad waxaanu maanta kormeer ku tagnay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan iyo aniga wasiirka arrimaha gudaha ah waxaanu soo aragnay bil xaqiiqa dhibaato aad u fara badan oo ay geysteen biyahaas oo dad iyo duunyaba saameyn ku yeelatay kadibna ay u gudbeen magaalooyinkii ay dadka shacabka ku noolaayeen alxamdulillah waxa gurmad balaaran oo isxilqaana sameeyay dowlad goboleedka Jubbaland ciidan iyo shacab labadii maalmood oo soo dhaafay hawlgal aad u balaaran bay ka sameeyeen sida aad ka arki doontaan media waxaan isleeyahay markii aanu qiyaasnay fatahaadaas xoogga iyo baaxadda ay leedahay waxa noo muuqata in ay dhibaato weyn ay ka soo socoto haddii aan ilaahay si kale farad ugu furin ama aysan helin gurmad degdega sidaa darteed waxaan abiil u jeedinaynaa guddiyada gurmadka masiibooyinka ee dowladdu ay magacowday dowladda federaalka ah dowladda Jubbaland hay'adaha internationalka iyo nationalka intaba ummadda Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay ee xilkasnimo in la isaga arintaas xil saaro sidii loo badbaadin lahaa boqolaalkaas kun oo Soomaaliyeed oo hadda u bilaabatay barakac oo uu sabab u yahay dhibaatada biyaha fatahaada waxaan isleeyahay Soomaaliya maanta meel badan baa arintaas ka taagan tahay meel kaste waxaan leenahay war wixii Soomaali ah oo danqanaya meel kasta in loo gurmado hase yeeshee mas'uuliyadda naga saaran shacabkan dowlad goboleedka Jubbaland hoos yimaada ayaan maaragtay abiilkaas rabnaa inaanu la wadaagno Soomaalida dowladda iyo hay'adaha wax caawina ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa ummadaas in aan masiibadaas ilaahay wax ku yeelin oo ilaahay uu farad u furo si ay uga badbaadaan inta hadda gaadhana waxay tahay in laga kaban karo laakiin waxaan isleeyahay baaxadda maanta aanu soo aragnay kormeerka ku soo aragnay ma ahan mid la dayarsan karo inay dhibaatadu inta ka ballaarato